سائلكن كله تلراجك وولاد داير waxa uuna guri leeyahay 2 bilood kaliya sheekhuna al-faadil 2 months kaliya waxa uu yiri gabadhii aan iskursanay waa iyaduna gabadh da'yar dadka 20 isku 22 jir ayaan nahay 2 bilood kadib gabadhii waxay leedahay buu yiri we don't match at all yani we totally different bay ku tiri waa sidoo u soo qoray Englishan laba qof oo ismatch gareynaya oo isla noolaan kara manihim bay tiri 2 bilood kadib intii hore aanan iskursanada dad shaqaana ayaanu ahayn marka wuxuu yiri hadda taasay la soo taagan tahay oo mar walba igu tiraahdaa haddana maxaan ku iraahdaa ay guriga lugna ku jirtaa lugna banaanka ayay u taalaa buu yiri oo qof maxaan ku iraahdaa ay xiriir hagaagsan aan leenahay ma jirto aniguna waan fahmi waayay buu yiri waan tukadaa gurigayga waan dhaqanaa wax walba waa okay baan nahay laakiin ereygan ay leedahay yani we don't match laba qof oo ismatch kareynaya manihin ayuu gurigayga ku dumayaa buu leeyahay sheekh Abu Dalxow marka maxaad nagula talin lahayd buu leeyahay saa'ilkan daada yar falit mashkuuran maajura alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'd wa cudur mudan illa daaweeyo cudurrada da'yarta intay isguursadaan laba bilood way badan tahay asbuuciyaanu aragnay inkastoo labada bilood ba asbuuciyo yihiin waana wax aad iyo aad looga xumaado asbaaba in la baxsiyo oo la raadiyo u baahanna way leeyihiin kuwa iska banaanyaal ah oo la arkayana way leeyihiin kuwa qarsoonna waa ay jiraan si kastaba ha noqoto waxay u badan tahay marka hore been in la isku soo sheegay qof walbana dhinaciisa wanaagsan uu tusay oo yiri maxaad iga taqaanaa aniga rag baan ugu qiimo badnahay hadduu ilaahay gacantayda ku soo geliyo farahaaga ayaad dhunkan doontaa oo ay ku soo eragelisay maxaad iga taqaanaa aniga haweeney marka la yidhaahdo lambar 1 marwo lambar 1 nadaafad lambar 1 qurux haddaan la bisto waad indha dirdiraysaa indhahaagu nihilnaac baa ka kacaya se markii laysu yimid nin walba dabeecadiisii asalka ahayd buu la soo baxay waxaa kaloo daahir oo muuqanaya oo dhalinyarada inta badan yaryar kala eriya jacaylkada cayriinka lagu soo cunaa oo shay hadday cayriin ku soo cunto waxaan isleeyahay calool xanuun buu dhaliyaa oo laga qaadaa jacaylka banaanka lagu soo jilaa intii la issukaansanayay ayaa wax walba la isku soo yiri guriga markii la imaaday maxaa la sheegi cayriinkaada lagu soo cunay waxyaabaha dumiye ayay kamid tahay waxyaabaha reeraha dumiye waxaa kamid ah dhalinyarada way badan yihiin waxaan dhihi lahaa ninkan dhalinyarada ah 20 jir nin weyn baa tahay ma yarid gabadhuna 20 jir ma yaro waxaan idinkula talin lahaa horta wada sheekaysta oo isfahma oo ereyga meesha yaallo anigu kuma fahmayo insijaamna kuma hayo ninka waxaa la doonayaa inuu daraaseeyo oo gabadha uu yidhaahdo bal ii qor bal waxa aadan igu fahmaynin ii sheeg ceebahayga ma anigaa shaksiyan ii neceb tahay walaalku hadduu imaqlay aad ha u dhegayso mise dhaqankaygaad neceb tahay ficilkaygaad neceb tahay qaabkaan u labista miyaad neceb tahay qaabkaan cuntada u cuna miyaan ku cajabinin qaabkaan ilaahay oogu xidhnahay miyay mulaaxado kaala jirtaa ma qaabkaan kuula hadlabaa ku dhibta ma bal weydii gabadha ma gacantaydaa kugu adagoo xagga dhaqaalaha ah saad rabtay miyaana kugu sheekaynin oo aana kugu qoslin oo qalbigaaga farax ma geliya miya nolosha miyaa aan nolol iska angegan oo qalafsanoo aad moodaba gurigu inuu mayd dhex yaallo gabadha weydii oo furfurg waa bini aadame la sheekayso oo waxaa dadaa bal aniga ii sheeg waan bedelayaa
waan bedelayaa haddaad laguu sheegana waxaa lagaa doonayaa marka inaad beddesho haddaba gabadhu haddayda ku dhahdo sidaydaba qalbigaygu waa kaa xidhmay hadday ku dhahdo waxaan kuula talin lahaa adigana ayadana ha dhibin adiguna ha isdhibine mid ka khayr badan buu alla ku siine bannaankaa ka mar baan ku dhihi lahaa haddayse gabadhu ay dhaliilo ay kuu sheegayso oo ay ku leedahay qaababkaasaan kuula noolaan laahay inaad qaababkii beddesho ayaa lagaa rabaa waxaa laga yaabaa nin adag inaad tahay nin carab badan oo xanaaq badan inaad tahay nin bakiya inaad tahay nin gobashii gabadhi ku qancin laba inaad tahay boqol waxaa dhici kara marka gabadha inta liise ay soo qorto ha ku soo hordhigto ha ku dhacdo war nin yahow waan ku rabaa shalayna rag baan kaa doortay waana ku jeclahay laakiin intanoo cudur baana kugula noolaan karin walaalo ee cudurradan iga bedelo dhakhtar tag oo wixii dhakhtar caadi u baahanna dhakhtar tag wixii dhakhtar diina u baahanna oo cibaado ana dhakhtarka diinka ku daawe wixii tajaaribka u baahanna tajaaribta iyo mataqaanaa ku daawe gabadha adaa lagaa doonayaa inaad daaweyso gabadhana waxaan dhihi lahaa gabadheeda soo taagnaani oo hadhihin kuma fahmaye haddee shalayba adaa ninkan doortaye waxaad ku dooratadeed qabtay ood ku fahamtaye bal luqadii aad ku fahamtay maantana ku faham oo ninkii waan ku arkay ha oga tegine waxaad dhahdaa war wax bedel oo u sheeg ninka hadhihin uu kuma rabee waxaad dhahdaa waxan iyo waxan baana kugu rabin qodobada aan sheegay haddii reeraheenna si dhaba aan oga niqaashi lahayn qanaacada maystiran baan ku qabaa laba isweydaba inay yaraan lahayd maxaa yeelay cudurkaagii baan kuu sheegay adiguna waad isdaaweysay cudurkaagii baan kuu caddeeyey haddii adiguna waad isdaaweysay khalaas intaa way waxa meesha ku jira sidayda kale kuuma nicdi laakiin hadduu nacayb uu yimaado oo qalbiga xidhmo waxay u badan tahay nasiibkiina iyo qadarkiina iyo dhacaankiini baa dhexdiina ka dhammaaday taasna marka waa miduu alaleeyahay fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan wallahu aclam ما شاء الله بارك الله فيك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى كبركيو سؤاشينا ugu dambeysay saailkan waxa uu leeyahay waa gabadh weeyaan waxay tiri qof maaragtay mustaqbal fiican raadinaysa ayaan ahay sheekh awal ii soo duceey ilaahay subxaana watacaala arrintan maaragtay ama mid maaragtay kale ka wanaagsan rabbiga inuu isiiyo waxay tiri nin baan wada sheekaysanaynay ninkan waxaanu ka heshiinay guur isagu wuxuu joogaa Yurub aniguna waxaan joogaa bay tiri North America qaraabo iyo dad ii jooga meesha uu jooga ayaan u diray oo aan ku yiri bal ninkaas inaan rabaa inaan guursado diintiisa iyo dhaqankiisa hal iga soo ogaado dadkii waxay igu soo warceliyeen ninku waa nin wanaagsan bay yiraahdeen laakiin inuu xaas leeyahay miyuu ku sheegay iyo caruur waliba maya baan ku yiri bay tiri isagii baan dib ugu soo noqday waxaan ku yiri bay tiri inuu dawayno heshiinay inaan iskursanaan rabnay wax walba okay bay ahaayeen laakiin maxaad iga qarisay xaaska iyo caruurta Yurub ku joogta wuxuu yiri waxaan ka baqayay haddii aan ku sheego inaad adigu iga cararto oo aad mataqaanaa